بسم الله الحمد لله. waxaan rabaa inaan shirkeyga jiraad ku balbalaariyo taariikhda ay leedahay beesha facaweyn ee beesha maxamuud hiraab duduble waxay ka dhalatay beelweynta hawiye irir samaale afarta beelood waaweyn oo hiraab ay ka mid tahay runtii waxay degtaa gobolada dalka Soomaaliya min raas caseer raas kabooni laakiin awoodooda ugu badan waxay degaan gobolada dhexe runtii beesha waxay leedahay taariikh weyn waxa ka dhashay geesigii Soomaaliyeed maxamed cabdulla xalane ina xalane godgod ninkii calanka Soomaaliya difaacay 66 markii Itoobiya ay ku soo duushay Soomaaliya dagaalkii wajaale aynu ku faanaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Itoobiya ma wajaale ilowday cadawga birmaahe burburiya cagta ciidiisa ka dhowra ninkaas ayaa ka dhashay beesha maxamuud hiraab duduble maantana beesha caalamka ay daris u tahay madaxweynihii hore Soomaaliyana xidig dahaba oo guddoonsiyay xalana waxa la oran jiray xalada xalana botiko xalana sidaas loogu bixiyay horta ninkaas baa ka dhashay waxa ka dhashay caaqilkii Soomaaliyeed siyaad dariyo dhoobe ninkii caaqilka ahaa ee ariga magta ku dhiibay ciise maxamuud ariga magta ku siiyay ee caaqilka ahaa oo yiri laba ragay la wadaagtaa laba dumarkay la wadaagtaa laba fardahay la wadaagtaa labana looday la wadaagtaa labana way sii dheerta ragga waxay la wadaagtaa garka iyo rinka geelana waxay la wadaagtaa qatinka iyo qoromashada arigana waxay la wadaagtaa geeska iyo qoobka fardana waxay la wadaagtaa gurdanka iyo geelabka labana way sii dheertaa ayadoo laba jira ayay laba jir siixisa hashumaanka iga gaday ma masaar bay laqday ninkii yiri weeye aqalkaasna wuxuu ka dhashay beesha maxamuud hiraab duduble waxa ka dhashay ugaaskii Soomaaliyeed ugaas mahadal leh aha ugaaskii Soomaaliyeed ee ugu horeeyay la duubay ayaa ka dhashay waxa ka dhashay ugaaskii Soomaaliyeed ugaas faarax fooday oo runtii hawiye daarad dhulka u qaybiyay ee magaalada gaalkacyo yiri waxa iga horeeyay waxa iska leh daarad waxa iga dambeeyay hawiye iska leh sidaasna lagu heshiiyay runtii oo u qaybinay gaalkii daldalool ee Talyaaniga berigii gumaystaha waxa ka dhashay abukaati ugu horeeyay gobolka Banaadir 13 xil u qaybiyay gobolka Banaadir sanatarada ay ku xisaabtamaan Abuukar Nuur Duduble awoogiisna uu hogaaminayay boqortooyadii Duduble gaalo gube maartay ceel jaalle dhulkaas ka soo dagaalay oo geesiga wiilkiisii oo runtii wiilkiisa kale Muxtaar Abuukar Nuur Duduble uu yahay maanta ninka abukaataha Soomaaliya ugu weyn aqoonyahanka ayaa ka dhashay waxa ka dhashay suldaankii Soomaaliyeed runtii Muqdisho ilaa Baydhabo runtii Shabeellaha Hoose ilaa Beledweyne ka talinayay alxaaji cigal hoolay suldaan hoolay Allah u naxariisto suldaan cigal iidow caalim suldaan hoolay Allah u naxariisto aabay ayaa ka dhashay suldaan Soomaaliyeed waxa ka dhashay taajirka Soomaaliyeed Axmed Nuur Cali Jimcaale aabiisna caaqilka Soomaaliyeed uu ahaa Cali Jimcaale Madowbe ama Cali Jimcaale Abtidoon waxa ka dhashay geedi farayare runtii dadkaasi waxa weeye dad aad iyo aad u qiimo leh maantana waxa weeye Soomaaliduna ay maartay ku naanaysaan baashi lacagta ama dollarka adduunkana uu yiraahdo Singapore Soomaaliya runtii baashaas waxa kale oo ka dhashay ninkii la dhigi jiray Elman Ahmed Ali runtii aqoonyahankii Soomaaliyeed qoriga dhig khalinka qaado marka wax lagu soo koobi kara maaha geesigii Soomaaliyeed bootaan Ciise Caalim ayaa ka dhashay waxa ka dhashay maqadeeye waxa ka dhashay ninkii la dhigi jiray Cornel Cabdi Macalin oo runtii inay USC qabsato magaalada Ceelbuur ka dambeeyay marka hal iyo laba lagu soo koobi karo anoo suldaankii Soomaaliyeed suldaan maxamed suldaan cigalle ayaa ka dhashay beeshaas marka waa beesha ugu taariikhda weyn ee Soomaaliya runtina beeshu hala dhaho halagu dhufto iyo hala dhiiba inta basaas caan bay ku tahay gabartii ugu horeysay ee Soomaaliyeed ee baarlamaan ka tirsanaato Xaawo Cawaale Abtidoon Xaawo Yarey ayaa ka dhalatay runtii beel saas qiimo u leeyaan waxa ka dhashay xildhibaan Yuusuf Geelle Ugaas oo runtii ah nin maanta dawladda Soomaaliya ama sharafta Soomaaliya badbaadiyay waxa ka dhashay Farxaan Cali Gaban oo ah nin aqoonyahan ah oo galmudug salka u dhigay waxa ka dhashay Faarax Cabdi Diini Hilowle oo nin aqoonyahan ah runtii wax la soo koobi kara maahan beesha maxamuud hiraab
wanaageeda iyo horumarkeeda shirkadaha buruuj beeko hormuud maaragtay shirkadaha waaweyn sida warshadaha waaweyn coca-cola shaakir wax la soo koobi shirkadaha barwaaqo wax la soo koobi kara maahan laakiin waxaasoo dhan dadka Soomaaliya ayay ku midaysay golis talso waxaasoo dhan Soomaaliya ayay ku midaysay waana dad dawlad yaqaan ah cashuur bixiyaasha ugu weyn ah haddaba beeshaas waxay walaalo yihiin oo ay wada dhasheen runtii beesha maaragtay ilmo hiraab oo ah maxamuud hiraab oo duduble ah martila hiraab oo habar gidir ah mudulood hiraab oo aad garanayso abgaal iyo ujeedeen ah iyo wacdaan iyo ilaawe runtii iyo mobileen runtii shiiqaal oo ayadana ah hiraab afartaas waxaa la yidhahdaa ilmo hiraab waxaa waalid u ah oo runtii aan la inkiri karin beesha faca weyn karin leh oo ah mursade waadeere faadimo waadeere karin leh waa gabadha duduble soo korisay oo runtii abaal weyn aan u hayno runtii Soomaali waxay tiraa dad ma digin baa dhashay mursadaha iyo dudublaha iyo habar gidirta waxaa ka dhaxeeya dhaqan aan Soomaali ka dhaxayn mursadana lagu dhowro waalidna uu ku yahay runtii mursada waa dad sharaf badan waa dad qiimo badan intaan soo sheegay in ka badan baa ka dhalatay mursada iyo duduble iyo habar gidirna wax kala saari kara male sida gacnaygaas iskugu jiraan ayay iskugu jiraan walaaleyna yihiin qof maanta youtuberna kalama sooci karo gabadha mursadaha waa faadimo gidire waadeere karinle waa gabadhii duduble soo korisay ama magaca beesha habar gidir ay sheegtaan anagu ma sheegano maxamuud hiraabana la yiraahdo laakiin hooyadiina soo korisay waaye jannatul firdaws allah ka waraabi odagii hiraabna wuxuu yiri hilibkaaga ma cuno haad iyo holici naareede magacayga hebta ayaa ku hagoojiyay marka aad bay qiimo noole leeyihiin gabdhahooda wiilashoodana waxa weeye odagii karinle noole mid yihiin ama mursada ha ahdo ama karinlaha kala ha ahdo marka wanaagaas iyo quruxdaas faraha badan haddii xaashin weliye axmed nuur cali jimcaale ay walaalaha iyo soo wada ganacsadeenna waa niman reer ceelbuur isku ah mursada iyo dudublana hadda shirkadaha aan soo sheego dhan wada leeyihiin dad wax wada sheegta maahan dad waxa waaye isku nafa isku diin ah isku hadal ah isku aqoon ah isku socod ah wax maanta u kala soocan yihiin ilmahaas iyo maaragtay haweenka mooyaane mursada iyo duduble dad wada dhasho weeyaan walaalkay socdaal waxaan ku leeyahay libinta mursade ilaahay siiyey hiraab oo dhanaa ku faana hawiyo oo dhanaa ku faana waana walaalahin libinta uu keenay maaragtay afarta habar gidir iyo adeerkood mursadaa ku faano hadday habartaas jiri lahayn maba jiri lahaynba marka niyow dadka ma taqaanid taariikhda soo baro mursada annaga wuxuu nooga yaala meesha wadnaha iga yaal buu mursada nooga yaal haddii wadnahaas laga bixiyo ma noolaanay mursada haddii Soomaali laga bixiyo Soomaaliba ma jirayso abgaal buu dhalay habar gidir buu dhalay duduble soo korsaday duduble dhalay nin duduble ayadiis ba aan ahayn mursada ma jiro marka socdaalow taariikhda baro duduble iyo mursadana ereykaaga isku diri maayaan mursadana lagu caay maayo mursadii dudublena way siiqaan waa ehel qaraabo ilaahina waxaan ka baryeynaa hiraab iyo karinle ama hiraab iyo harajiif ilaahay qalbigooda bulcada isku mariyo wanaagooda Allah tusiyo ninba ninka kale garab u yahay cadawgooda Allah jibiyo meesha ay maaragtay wax ka tabanayaan ilaahay ha ka tiro qalbis daara Allah ka fogeeyo farqis daara Allah siiyo socdaalna waxaan leeyahay iimaanka Allah ku buliyo wanaaga Allah ku tuso cid ku jawaabaysa male mursada sida koofidaas madaxa noo saaraya kalena sida koofidaas madaxa noo saaraya walaalahay waaye inaan wax ka sheegno adigaas hadda wax sheegaya xataa wax kaama sheegi karo mursada ka dhalatay dad qiimo laad ka dhalatay dad walaalahayna ka dhalatay dadna dhalay baad ka dhalatay raali gelin baa adiga ku siinayna Soomaali faham cid hadda raali gelin laga siinayo ama duduble ah ama habar gidir ah ama hiraaba ma jirto waa wiilkooda qaldamay socdaal waa awogooda qaldamay meel sharaf loo mursadu ka dhashay halkaas aan warkayga u deenayaa wixii aan qaldayna nafsi sheedan baa wixii aan hagaajina Ilaahay baa uga mahad celinayaa anoo suldaankii Soomaaliyeed warkayga intaas aan ku soo koobayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh